بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد maanta halkaanaan joognaa express house waxay ku taallaa udun balaan koobka kafeega waa 62 shilin ka soo baxa tiinista hawada soo qaata kaalaya carrada soo mara ma fahanteen lagama sheekayn karo awal waa baqahayay markaan talaaladii qaatay labadii talaal markaan qaatay ayaan waxaan noqday inaan socdo awal magaalada waa ka bixi jiray dadka uma tagi jirin marka walaalayaalo soo baxa hawada soo qaata kafeteriyooyinka caanka imaada talaalka hala qaato talaalku waa fiican yahay maasha Allah tabaarak talaalka markaad qaadatid waxaad helaysaa kalsooni dheeraada waxaad helaysaa farxad waxaad helaysaa isku kalsoonid waxaad helaysaa inaad muunka maxaa la dhahaa qiid muunka aad iska dhaaftay aad sanka xiran marka waxa loo baahan yahay hal istalaalo meel la joogaba cuduradan waxa leeyahay waa ilaa 7 qaybood waaye marka hadda kii afraad baa hadda socda oo waliba hargab buu eg yahay duuf iyo waxa lagu leeyahay madax xanuun iyo laf xanuun iyo daal iyo arrimo badan marka si looga hortago waa in la istalaalo oo la dadaalo dadka ehelka aan istalaalina wax loo sheego wax laga dhaadhiciyo inkastoo aan dad madax adag nahay anaaba kamid ah dadkii intaas soo bilowd intuu socday oo dhan ka baqay waliga istalaali maayaan dhihi jiray laakiin hadda aakhirka waan istalaalay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan istalaalo oo aan free baan dareemayaa hadda oo aniga meel kasta marahaya meel kasta imaanahaya maxaa ahayd afkuna iima xirna sababtoo ah ilaahay haduuna taadii uuna ka dhigin kuugu dhici mahayo sidii karoonihii oo kale wuxuu kuugu dhacayaa sidii hargab safmarahoo kale ayuu kuugu dhacayaa marka waxaa loo baahan yahay in la istalaalo oo la iswacdi geliyo oo la iska warqabo oo dadka wax loo sheego haddana waxaa lagu leeyahay socodka ha la iska yareeyo iyo saanta meelaha sideed qof ka badan waxay dhaheen dadku Swedishku la iskuma imaan karay dhaheen laakiin waxa weeye waa adigu in la kala fogaado long distance la kala joogo ilaa 2 tilaabo kale la isku jiro marka waxa waaye saas ogaada walaalayaal talaalka hala qaato si loo safro qof walba meeshuu rabo uu tago oo qof walba meeshuu rabo uu socdo oo qof walba free uu dareemo waa ka talaalada hala qaato waliba cirbad saddexaad baa soo socotaa la yiri ayadana bal waa la ogaan doonaa waxay macluumaadka ay xambaarsan tahay marka waa kaas maanta waxa weeye cafe house kaanaan joognaa maasha Allah tabaarak waxaa la furay 1996 mar dadka caanka ah halkaan iskugu yimaada sida dadka qorayaasha iyo dadka eriyadan degan waa ogtiin udun balaan iyo Midboria Balaasan iyo Santa Iris balaan iyo Freehems balaan iyo gudi eriyadan oo dhan marka walaalayaal waa kaas khayr iyo barwaaqo ku soo dhawaada ka soo baxa xaafadaha waxa waaye ay ku badan yihiin dadku siiba meelaha santarada xiran ina ma fiicna in muxuu ahayd la fariisto santarada meelaha waxa ka fiican ka baxsan oo hawada loo darishado oo freeska luft in la qaato waa wax muhiim ah marka waa kaas meeshaas aan ku jirnaa aka u samaysantaa ma u jeedin annakuna waxaan isku laynaynaa oo isdilaynaa adduunku hadda business u soo jeestay ninkii xataa 2 mitir meel 2 mitir oo yar kafe iyo dhigta iyo rooti yar iyo sambuus yar lacag buu ka dhirgahayaa hal shaqaysto yaan la isku maqnaanin hal kala maqnaado way fiicanto nin walba tiisa uu ku mashquulo dantiisa uu raacdo waa kaas oo billahi tawfiiq khayr baa inii rajaynaa